gantaala ayaa weli lagu garaacayaa magaalada Kiev. Xaaladdu waa ay qasan tahay weli. Dad badan ayaa wadooyinka daadsan oo ku dhintay weerarada ka socda magaalada Kiev. Shacab badan ayaa ka barakacaya magaaladaasi. Ruushka waxa ay qiratay in qasaaro uu ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday Ukraine. Warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay saaka sida ay tahay xaaladda magaalada Kiev iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala dalka Ukraine. Marka hore intaan u gudagelin warbixinteena, fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelkeena Galka Media isla markaana gambaleedka aad furtaan muuqaalada halkan aan soo gelina aad like saartaan. mahadsanidin dhammaantiinba aan ku bilowno. waxaa weli dagaal culus oo ka soconaya magaalada Kiev ee dalka Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa duqeymo xooggan ka geysanaya magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan dalka Ukraine. markii ugu horeysay dawladda Ruushka waxa ay qiratay qasaraha ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in qasaaro ay ka soo gaareen dagaalka ka soconaya magaalada Kiev iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Ukraine. waxaa jira dhimasho dhaawac soo gaaray militariga Ruushka intii uu socday howlgalka qaaska ah oo ay ka wadeen magaalooyinka waaweyn ee ka tirsan dalka Ukraine ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. qasaaraha soo gaaray ciidamada Ruushka waa uu badan yahay. sidoo kalena waxaa jira burbur xooggan oo la gaarsiiyay gaadiidka dagaalka oo ay leeyihiin Ruushka ayay mar kale tiri wasaaradda difaaca ee Ruushka. gantaalo nooca loo yaqaano Iskanderska oo laga riday Belarus ayaa lagu weeraray Ukraine. waxaana sidoo kale la sheegay in qasaaro xooggan la gaarsiiyay ciidamada Ukraine. weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha dalka Ukraine. waxa uu sheegay in weli ay wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan dawladda Ruushka isla markaana ay iska caabin doonaan. gantaalada waaweyn ay adeegsanayaan Ruushka waxay ku dhacayaan meelo ay degan yihiin dad rayid ah, waxayna bartilmaameedsanayaan ciidamada Ruushka dadka rayidka iyadoona qasaaro ay gaarsiinayaan, ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine. bayaan laga soo saaray waaxda arrimaha dibadda ee dawladda Ukraine waxa ay sheegtay in weli xaaladdu ay kacsan tahay isla markaana meedad badan ay daadsan yihiin wadooyinka kuwaas oo ay ka mid yihiin ciidamada Ruushka. sidoo kalena Ukraine waxa ay sheegtay in gaadiid dagaal laga gubay dawladda Ruushka. dawladda Ruushka waxa ay xaqiijisay inay gacanta ku dhigtay ciidamo ka tirsan kuwa Ukraine isla markaana haatan ay wado sidii ay u wareegi lahayd xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalooyinka ka tirsan dalka Ukraine. qatartu weli waa ay badan tahay, cabsidana weli waa ay jirtaa. warbaahinada caalamiga waxa ay ka qorayaan in xaaladdu weli ay kacsan tahay isla markaana marka si dambaysa ay ka sii dari karto. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Isniina waxa uu la hadli doonaa xulafadiisa si uu uga hadlo jawaabta saxda ah ee laga bixin karo howlgalka gaarka ee Ruushka uu ka wado Ukraine. sida uu sheegay aqalka cad sida ku cad ajandaha uu soo saaray aqalka cad, shirka ayaa waxa uu ka dhici doonaa nidaamka isgaarsiinta waxaana uu dhici doonaa 5:15 daqiiqo waqtiga Washington. 24 Febraayo Ruushka waxa uu bilaabay howlgal military si uu hubka u dhigo Ukraine, inkastoo Ukraine ay ka biididay duulaanka Ruushka ay ku qaaday dalka Ukraine. weli waxaa ka soconaya magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Ukraine duqeymaha ay geysanayaan ciidamada Ruushka. ciidamada Ukraine ayaa dib u wareegay gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Kharkiv sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. xogaga Ruushka waxa uu suuro gashay inay gudaha u galaan magaalooyin kale oo muhiim ah oo ka tirsan dalka Ukraine. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in dagaalka uu ka soconayo wadooyin muhiim ah oo ka tirsan dalka Ukraine. guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaa warbixinteena aan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay qasaraha ka dhashay dagaalka qaraar ee ka soconaya dalka Ukraine. fadlan hadaad ku cusubtahay channelkan subscribe sar, gambaleelka furo, muuqaalada halkan aan soo gelino like sar. mahadsanidin dhammaantiinba saaxiibayaal.